saddex shay baa la yidhi ummaduhu way ku dumaan, saddexna ummaduhu way ku horumaraan oo way ku dhismaan. saddexda ummaduhu ay ku horumaraan waxa weeyaan waa runta iyo ammaanada iyo cadaaladda. saddexda ummaduhu way ku dhismaan. ninkii doonay inuu ummad dhiso, ninkii doonay qoys inuu dhiso, ninkii doonay mujtamac inuu wax ku taro bay culimmadu leeyihiin saddexdaa khasladood waa in laga helaa. waa in laga helaa ammaano, waa in laga helaa waxa laguu dhiibay. ama reerkaaga ha noqoto, ila nin walba reerkiisa waa ka mas-uul, ama meherad qof leeyahay ha noqoto, ama mas-uuliyad hoose ha noqoto, ama mas-uuliyad ummadeed ha noqotee wixii laguu dhiibay waa in sideeda laguugu yimaadaa, waayo ilaahay baa ku arkaya oo ku maqlaya. ammaana iyo sidqi waa inuu yeeshaa qofka muslimku. sidq dadka run uu sheeg, weligaa been ha sheegin. oo nebigeenna calayhi salaatu wassalaam saxaabadu waxay ku yidhaahdeen yaa rasuula allah, ninka mu'minku fulo ma noqon karaa? haa waa noqon karaa buu rasuulku yidhi. ninka mu'minku ma aragtaanay bakhayl ma noqon karaa? wuu noqon karaa buu rasuulku yidhi. markaa baa nebiga lagu yidhi nebi allow ninka mu'minku beenaale ma noqon karaa? markaa buu nebigu yidhi mu'minku beenaale ma noqon kara buu yidhi. iimaanka iyo beentu isma galaan. cabdullaahi bin cumar binu khadaab allah raalli ka noqdee ayaa isagoo miyiga maraya, nin adhi la jooga baa markaa neef adhigii buu ka noqdo caanu uga soo maalay. markaasaa caanihii loo keenay cabdullaahi bin cumar, markaasuu caanihii cabbay. markaasuu adhiga ma adigaa leh? maya adhi jiraan ahay buuhi anigu, laakiin adhiga sayidkaygaa iska leh. markaasuu yidhi adhiga neef nooga qal. markaasuu yidhi adhiga inaan neef ka qalo oo dadka neef u qalo ruqsad uma haysta buu ku yidhi. markaa buu yidhi oo sawdiga caanihiisii na siiyey ma? wuxuu yidhi caanaha waa la ii ruqseeyoo laygu yidhi dadka socotada adhiga caanaha ka waraabi, laakiin cadkiisa layma fasixin buu ku yidhi. markaa buu ku yidhi neef noo qalo. sayidkii xoolaha lahaa markuu tabuuk weyddiiyena waxaad ku tidhaahdaa waraabaa neefka iga cunay, urwaabaa neefka iga cunay, isagiina arki maaye. markaa ninkii reer miyiga wuxuu yidhi hadduu ninkii adhiga lahaaye sayidkii uunani arkaynin soo ilaahay arki maayo. waa kii miyiga joogay ayaa la baray ilaahay baa ku arkaaya, ilaahay baa ku maqlaaya. kii miyiga joogay baa lagu yidhi ilaahay ka cabso. kii magaalada joogayna cumar binu khadaab radia allaahu canhu khilaafada islaamka taladeeda markuu hayey ayaa waxaa la soo hormariyey siwaaraya kisra, dawladdii faris markii saxaabadu ay ka adkaadeen ee ay ka guulaysteen khasaa'intii dahabka, weliba kursigii boqorku ku fadhiisanayay dahabka, iyo gacmihiisii dahabka, iyo goofiyaddiisii dahabka oo baqal lagu wado ayaa laga keenay ciraaq. halkaaba ciraaq baa la soo mariyey, shaam baa la soo mariyey, jasiirat alcarab, madiinat almunawara cumar binu khadaab loogu keenay. caliy bnu abi taalib baa cumar ag fadhiya. deedna markaasuu cumar baa yidhi wallaahi ragga xoolaha intaa la eg halkaa intay ka soo qaadeen aanan hunguriyeynine halkaa noogu keenay waa rag ammaano leh buuhi, waa rag ammaano leh. markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin, cali baa ku leh, annaku iyaka la yaabi mayno. oo maxaanu la yaabayn baa kuu sheegayaa. amiirkii mu'miniinta ayaa wixii ummadda loogu dhiibay iska ilaaliyey, wixii ummadda loogu dhiibayba uu hayey, uu dhowrsoonaaday, ayakuna markaasay wixii ummadda ka dhowrsoonadeen buuhi. amiirkii mu'miniinta wixii ummadda loogu dhiibay uu ilaaliyey buu yidhi adigay kaa timiday islaaxu, ammaanadu adigay kaa timiday, dhowrsoonidu adigay kaa timiday, xalaal mirashadu adigay kaa timiday, taqwadda ilaahay adigay kaa timiday. adigii baa toosan oo hagaagsan sow maaha? iyakiina markaasaa lagu yidhi way hagaageen. saddex shay baa la yidhi ummaduhu way ku dumaan, saddexna ummaduhu way ku horumaraan oo way ku dhismaan. saddexda ummaduhu ay ku horumaraan waxa weeyaan waa runta iyo ammaanada iyo cadaaladda. saddexdaa ummaduhu way ku dhismaan. ninkii doonay inuu ummad dhiso, ninkii doonay qoys inuu dhiso, ninkii doonay mujtamac inuu wax u taro bay culimmadu leeyihiin saddexdaa khasladood waa in laga helaa. waa in laga helaa ammaano, waa in laga helaa waxa laguu dhiibay. ama reerkaaga ha noqoto, ila nin walba reerkiisa waa ka mas-uul, ama meherad qof leeyahay ha noqoto, ama mas-uuliyad hoose ha noqoto, ama mas-uuliyad ummadeed ha noqotee wixii laguu dhiibay waa in sideeda laguugu yimaadaa, waayo ilaahay baa ku arkaya oo ku maqlaya. ammaana iyo sidqi waa inuu yeeshaa qofka muslimku. sidq dadka run uu sheeg, weligaa been ha sheegin. oo nebigeenna calayhi salaatu wassalaam
saxaabadu waxay ku yidhaahdeen yaa rasuul allah ninka mu'minku fulo ma noqon karaa waa noqon karaa buu rasuulku yidhi ninka mu'minku ma aragtaanay bakhayl ma noqon karaa wuu noqon karaa buu rasuulku yidhi markaa baa nebiga lagu yidhi nebi allow ninka mu'minku beenaale ma noqon karaa markaa buu nebigu yidhi mu'minku beenaale ma noqon kara buu yidhi iimaanka iyo beentu isma galaan ammaano waa inuu qofka muslimku yeeshaa sidqi waa inuu yeeshaa uu noqdaa run sheege asidqu طمأنينة أبو نبي والكذب ريبة بنت قفك الشكي بيكو أبورتا شكي يا وسواسي عبسي بيكو أبورتا هل قرنتن قفك مومك أيسي سمارك ثاني نبض وكهب عدالة قفك مسلم قوائل ويشا عدالة لا بدا المودد وضد الشيء على الربعين هذو عدالة سبيسي هل كان شريعة الإسلام وعدالة كبيرة صحابي بالنبي محمد ولي مدي إنك يسيبوا وضع فرسنا وضع markaa buu yaa rasuulallah wiilkan waa wiilkaygii carruurta asagaan ugu jecelahay faraskana isagaan u hadiyeeyey buu ka yidhi markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi walaalihiisii isaga la dhalatayna ma wada siisay fardahaasoo kale ma wada siisay maya ma siinin laakiin isagaa akhlaaq wanaagsanoo isagaan la jeclaaday markaa buu nebigu yidhi waryaa ama wada sii ama ka daa buu nebigu ku yidhi anigu dulmi mara ka noqon maayo buu nebigu yidhi markhaati ka noqon maayo dulmigaad samaynaysa